iyadoo uu weli ka socdo caasimadda Somaliland ee Hargeysa gaar ahaan garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa koobkii gobolada Somaliland ayaa waxa maalintii shalay tolo wada ciyaaray gobolada Hawd iyo Daadmareed ciyaartaasi oo keentay khilaaf ballaaran. haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada sportska ee gobolka Togdheer ayaan wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan qaabkay u dhacday ciyaartaasi. shaafici walaal waan dhawahay magacaygu Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil kuna magaca dheer Cabdiraxmaan Sabiloshe shalay deeg kale horta ciyaar aad iyo aad u qurux badan baa ka dhacday garoonka Hargeysa Stadium ruuxaantii marka la eego dheelitirka kubadda la ciyaari kubadda runtii de fiican baa ahayd laakiinse godololo badan oo halkan aan ka xusi doono ayaa ku jiray. godololada waxa ka koowaha marka la eegayo xeerarka kubadda ee sportiga ugu horeyn marka garsoorka aan ka bilowo waxa dhexdhexaadinaya ciyaarta waa garsooraha markaan ka bilowo garsooruhu xeer buu leeyahay ku dhigaya in ciyaartooyga garoonka loo xushay ee kabtanka loo yaqaan ama qaa'idka ama calaamada siida sita inuu garsooraha la hadli karo uu wixii qaladaad oo cabatina uu tabanayo uu isagu sheegan karo kooxda inta kalena inay isaga u daba istaagayso talabaad oo ka taban karaan laakiinse garsooruhu xeerka FIFA marka la eego in funaanadiisa la taabto ama uu player kamida playerada garoonka gudihiisa ku jira uu taabto uu ku dhawaado waa ka mamnuuc. taa markaan halkaa kaga imaado waxaa jiray laba tababaro oo kala watay labada xul tababara Diridhaba iyo tababara Cabdifataax Shimriidho labaduba waa laba khubaro midna ciyaartooy buu ahaayo marbu tababaro u ahaa Diridhaba oo macallin buu tababaro u ahaa Cabdifataax Shimriidho tababaruhu wuxuu xaq u leeyahay oo ah xeerka FIFA marka la eego kubadda tababaruhu inaanu liidinta loo sameeyay ee ku calaamsan garoonka looga jeexay inaanu ka gudbin shaafici walaalo shalay waxay muuqatay ruuxaantan iyo Cabdiraxmaan ahaan in uu tababaraha xulka gobolka Hawd uu dhaafayay xeerkii loogu talagalay taasna carqalado badan bay keenaysaa inay tababarihii ciyaartooydii kale safdhaafaan isku dhacaan bay keenaysaa waxay kaloo keenaysaa in calaamadaha labaad ama calaamadaha saddexaad baa loo yaqaan ee miiska juuriga bedelka qabta inuu xaq u leeyahay inuu joojiyo tababaraha uu dhaag gegidaada lagu talagalay ku joog wasaaradda sportiga caqabadahaas oo kow ayaa haysta inaanu joojin karin inaanu xakameyn karin tababarihii sirwali saddexaad ama garsoorkii saddexaad waxa kale iyaduna caqabad ah waxa jira imika markaynu xagga caalamka u baxno kooxa isku ah caqabad weyn ama isku ah classico sida kooxad ka ciyaara Argentina oo kale la Boca Juniors iyo River Plate labada kooxood waxay heer kala gaaraan marka maanta oo kale ay isku dhacaan ama isku beegmaan ciyaartooyda waxa la sameeyaa in garoonka ay leeyihiin labada kooxood laga madnuucayn lagu ciyaaro oo garoomo kale lagu ciyaarsiyo. wasaaradda Somaliland ee ciyaaraha iyo sportiga wasiirka Boosmere waxaan ku canaananayaa aan ku dhaliilaya inuu ciyaarta shalay waa la wada ogaa inay caqabad badan oo ciyaar adag oo classic ay tahay in shalay toole dabada loo saaro oo garoomada kale ee dalka ku yaala meel carabaabi maayo in la geeyo. goolkii kora ahaa ee markii dambe la dhigay ee lagu talagalay in ku kala baxaan goolkii ugu badan dhigay horta shaafici waad iyo aad walaal mahadsantahay goolkii kooraha marka aan ka hadlo fikir ahaantayda horta baashin kooraha lagu yiraahdo waxay ku xirantay ciyaartooy labada ciyaartooy suujahaya goolhayaha iyo ninka kubadda kooxda u laabaya sirwalaha wuxuu xaq u leeyahay oo ah inuu xaq u leeyahay oo sirwalaha marka la eegayaa siidhiga markuu ka dhawaajiyo inuu goolhayo inuu laadi karo difaac ama goolka ninka kubadda kooxda u laabaya inuu laadi karo labada dheeg ee had iyo jeer goolka waxa la taagaa laba nin oo calanwadayaal laba siidh ay calanwada labada calanwada waxa loo taagaa inay sheegaan wixii qaladaad ay arkayaan badana shalay waxa la waan dacoonay baraha bulshada ku arkay inuu gooladu soo baxay bay leeyahay in gooladu hadduu ciyaartooygu soo dhaqaaqo oo kubadda ku soo dhaqaaqo oo dhigto uu salaxdo uu soo dhaqaaqo xagga kubadda soo wajaho gooladu mar walba waa diyaar garow ma in wixii diyaar garow ka baxsan oo ciyaartooygu kubadda ka hor yimaado meel kale ku soo boodo kale taas waa celis waa la qabanaya oo fikirkeeda dhamaade qof kubad daawado dhan ama ciyaara ama taageero dhan uu garanaya taa laakiin se goolhayu shalay wuxuu taagnaa meel uu ku munaasib ahaa in ciyaartooyga gobolka kale u laadaya ama kooxda kale u laadayna siidhigu markuu kubadda afufay wuu laaday oo marka anigu Cabdiraxmaan aan fikirkayga waxaan oran karaa goolkaas gool sax ah wuuna qabtay goolhayo.